السلام عليكم saaxiibkiina baash Valentino subscribe-ka ujeedin hawshiina qabsada maanta waxaan sameynaynaa career vlog-geena maanta wuxuu ku saabsan yahay kuwa hore ka duwan yahay 5 skills to help you survive university shan maxallahay xirfadood maxallahay oo aad uga survive kartid maxallahay jaamacadaada taas baan ku siinayna career vlog-geena intaas buu ku saabsan yahay marar badan careerada hore waxaan kaga hadlaynay shaqada iyo sida aad careerka ku dhisi lahayd hadda waxaan xoog saareynaa ardayda waqtigaas jaamacad dhigato okay waxaan u gudbayaa number 1 learn how to budget horta muhiim waxa ay markaad arday tahay inaad macnaha budgetkaaga aad baratid sidaad u manage garay lahayd waxa laga yaabaa meesha aad ka imaaday inay macnaha familkaaga kugu saacidinayaan lacag dhan 300 ilaa $200 ilaa $500 qof badbartiisa hadii lacagtaas aad maxallahay mar walbaba bishii aad isgaarsiinin waxa ma karo inaad stress kugu dhaco dhanka dhaqaalaha aad ka fikirtid midaasna aad keento inaad waxbarashadaada hore u wadayso marka mar walba waxa fiican in budgetkaaga uu ku kala habaysan yahay ku kala nidaamsan yahay bisha bilowgeeda ilaa dhamaadkeeda waa qaabka ugu fiican aad jaamacad marka dhiganayso ku survive kartid okay number 2 aan gudbaynaa know your resting time waa inaad ogtahay horta waqtiga aad nasanaysid taas aan number 2 ka dhignay tips badan horta wuu jiraa laakiin waxa uu soo qaatay kuwan muhiimka ah waa in dad badan ay ka faa'iidaan waqtiga aad nasanaysid dad aqoonin waa dhibaato weyn waqti baashaal inuu ku leeyahay waqti waxbarasho aad wax baranaysid iyo waqti aad nasanaysid hadii aad nasan waxa dhici karo in stress aad ka qaadid aad wareer ka qaadid oo waxbarashada ay ka caajistid marka qaar subaxda marka soo kacayid aad jaamacad aad isdheeysid inay ka caajistid aan aadi karin taas oo keeni karto in aad ku survive weyso jaamacadaas oo waxbarashada dib u dhaco mise aad ka baxay jaamacada marka waxa fiican mar walba inaad leedahay waqti aad nasanaysid taas oo kugu caawi karto inaad ku guuleysatid aad ku survive jaamacad dhexdeeda number 3 oo gudbayna number 3 waxaan ka dhignay start meal plan waa ina waqtiga cuntada ku qorsheysan yahay sida dadka hadda caadiga ah dadka waxay cunaan ilaa 3 waqti hadii aad maxallahay waxaan horta maxallahay dadka kuwaanaya mar walba markay waxbarasho baranayaan inay abroad dibadda ka dhigtaan taas ka caawi karto in nolosha wax badan ay ka fahmaan marka inaad cuntada aad qorsheysid waxay ku muhiim ka noqonaysaa in mar walba jadwalkaaga uu saxan yahay sidii subaxda markaa soo kacid inaad quraacatid maxallahay qadadii iyo cashadina aad sidoo kale cuntid wuxuu noqonayaa balance jirkaagu wuu balance gareysmayaa macnaha mana jireyso diet-ku ka qaldamo waxbarashada ka qaldamaysaa okay number 4 involve in group works number 4 waxaan ku diirad saarnay jaamacadda gudaheeda waxyaabaha aad ku qabsan lahayd xirfadaha kamid yihiin inaad ku shaqo lahayd group work-yada mar walba iyo seminaarada mar walba inaad ka qayb gashid aad dhex fadhiisatid marnaba aan isku dayin inay koobiyeen qof wax maxallahay khudbad u jeediyay mise wax uu ka hadlay mar walba waa in maskaxdaada fresh ah taa diyaar u ahaataa inay wax cusub mise wax qurux badan markaas curi karto kaasa macnaha ka saacidey karo in maxallahay jaamacadda ku dhex surfaaftid ina ku lug lahaatid group work-yada midka yar iyo midka weyn khudbadaha public speaking-ka waxyaabo badan meesha iska faa'iidi kartaa hadaad ku lug lahaatid group-yada waxa dhacdo dad badan inay maxallahay diiradda ay saarin group work-ka discussion-ka taasay macnaha ku aanayaan in ay dadku kala yihiin kala midab mise kala maxallahay kala luqado way fiican tahay inaad la sheekaysid mise la shirtid dadka luqad duwan mise kala duwan taas experience-ga ay kor u qaadaysaa number 5 learn how to speed read kan number 5 tan waxa uga dhignay waxbarashada aan ku shaleynay waxaan ku saleynay waxbarashada qofku waa inuu speed read barto inuu wax dhaqsi aqri karo maskaxdiisa record garay karto wax tiro badan isla waqtigaas si hadii kaadka examyada ku soo dhawaadaan inuu ka survive garo si qurux badan si ma sha Allah intaasaan ku soo gagabeynaa career vlog-geena aan uga hadalnay 5 skills to help you survive university waa saaxiibkiina baash Valentino intaan iyo in ka badan waxa waan soo gudbi doonaa saan kor ugu qaado dhalinyarta wax inay bartaan rabaan subscribe ka hala dhaafina